السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتن ودود السلام يماكستا الدنيا دافية كتشوكتان سيداد عوان كسربا كسو aragteen maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo saameynta baraha bulshada. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي haddaba intayna barnaamijka u gudagelin waxaan ka codsanayaa haddii aad kanaalka ku cusub tahay inaad subscribe saarto aad nagu soo biirto haddii aad ka mid ahaydna mahadsanid. haddaynu haddaba barnaamijkeena si toos ah ugu gudagalno caqabada koowaad ama saameynta koowaad ee nagu leeyahay isticmaalka badan ee baraha bulshada. horta anugu ka hadli maayo baraha bulshada in la isticmaalo saameyn inuu nagu leeyahay, waayo faa'iidooyin badan ayaa nooga soo kordha, balse isticmaalka badan aynu isticmaalno saameynta uu nagu leeyahay ayaynu ka hadlaynaa, waliba inagoo ka soo qaadanayna saameyno badan. saameynta koowaad inuu waqtigeena in badan inaga cuno, waayo waqti badan oo aynu ku fadhinaa waxay nooga faa'iido roonaan lahayd inaynu waqtiga wax ku qabsano. 1 saac ama 2 saac oo aad wax ku qabsato waxay ka anfacaysaa noloshaada dambe iyo mustaqbalkaaga iyo aayahaaga, balse 1 saac ama 2 saac oo aad ku fadhido baraha bulshada waxay kugu noqonaysaa saameyn xun iyo waqti badan oo aad iska lumiso oo wax ku qabsan lahayd. caqabada labaad waxa weeye waa mid saameyn ah, run ahaantii waliba saameyntaas oo la xidhiidha caafimaadkeena iyo indhaheena. saameyntaas labaad waxa weeye inay indhaheena daciifiyaan iftiinka badan ee ka soo baxaya shaashada moobilka toosna ugu dhacaya indhaheena. haddaba indhaheena iftiinka badan ee ku dhacaya waxay ku keenayaan inuu daciifo, waayo iftiinka shaashada uma xamili karaan indhahaagu inay iyagoo keliyaata uu ku soo dhaco. siiba gaar ahaan waxaa ugu sii dara waqtiga habeenkii ah. dad badan ayaa qol madow amaba iftiinkiisa ay baktiyeen leyrhka ayaa waxay ku dhex isticmaalaan weliba xilli dambe moobiladooda. haddaba la soco qolka madow iftiinkaa shaashadaada moobilkaaga ka soo baxaya inuu toos ugu dhici doono indhahaaga, weliba iftiinkaasi meel kale ma aadi doono. indhahaagana waxay ku keenaysaa xanuun iyo caafimaad darro, weliba indhahaaga ood aragto inay daciifaan aadna waxba u arki waayaan. caqabada saddexaad waxa weeye in laga heli karo macluumaadkeena oo dhammaystiran baraha bulshada haddii aanad ka xiran ama haddii aanad ka qarsan. haddii imika la galo website aad leedahay amaba YouTube channel ama wuxuu doonaba ahaado baraha bulshada ka mid ah, haddii aad gasho haddii aanad macluumaadkaaga ka qarin cid kasta dunida ka mid ah way ka ogaan kartaa, hadday weliba ahaato lambarkaaga, hadday ahaato adresskaaga. haddaba la soco haddii aanad qarin shirkadda iyo adduun weynahoo dhan way ka ogaan karaan, waana saameyn uu nagu leeyahay in macluumaadkeenoo dhammaystiran laga helayo baraha bulshada. haddaba dad badan ayaa isweydiinaya sidee looga heli karaa macluumaadkaaga dhammaystiran. haddaba macluumaadkaaga dhammaystiran waa laga heli karaa haddii aad leedahay website, haddii aad leedahay hataa whatsappkaaga haddii ahaato, waayo waxaa jira dad waxaan ku takhasusay haddii aanad ku qorin meesha aad leedahay lagama helayo, balse haddii aad ku qorto si kasta xataa haddii aad moobilka dhexdiisa ku qariso shirkadda iyo haykaraduba way arkayaan. saameynta afraad waxa weeye in beenaha dunida ugu waaweyn lagu faafin karo haddii aanad iska hubin. been kasta oo dunida la doonaya in lagu faafiyo waxaa loo adeegsadaa baraha bulshada. dhacdadani in badan wayna soo murtay haddaynu weliba nahay Soomaali, in badan beeno badan waa lagu soo faafiyey baraha bulshada. haddaynu maantana is odhanno tiriya oo soo tira kooba inta beenood aan jirin ee lagu faafiyey baraha bulshada, run ahaantii lama soo koobi karo, wax la soo koobi karana maaha, waayo aad bay u tiro badan yihiin. haddaba sidaynu u dhannahay waxay nala gudboon xog kastoo lagu faafiyo baraha bulshada inaynu iska hubinno, waayo been ayay noqon kartaa, runna way noqon kartaa, waayo baraha bulshadu waa meesha ugu badan ee loo adeegsado in lagu faafiyo been. haddaba intan ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta oo ka hadlayay saameynta uu nagu leeyahay baraha bulshadu. weliba baraha bulshadu mid kasta ahaato midna gaar ugumaynan hadleen, meel kasta oo loo isticmaalo baraha bulshada in lagu wada xidhiidho ama haddii wax kale loo isticmaalo, dhammaantood saameyn xun ayay inagu wada leeyihiin. 4 saameynood ee aan soo sheegay keliya inaguma laha, balse lama soo koobi karo saameynaha xun ee inagu wada leeyihiin. haddii aad naga daawanaysa YouTube channel subscribe saar si aad waxyaabo badan nooga faa'iido. haddii aad Facebook page naga daawanaysana like iyo follow saar si aad waxyaabo badan nooga faa'iido.
وأنيقو محمد سعيد علي محمد إكماوي halkaad ka dheehanaysaan barnaamijkan waa Kaska Media waxaan idinkaga tegayaa salaamu Allaahi calaykum